وأرنتها مركي دعاء عاصم يشد أرنتي بلايد اللقاء رفعه كل كهر بلاي إنه كدري أرنتها كالرفع بلايد اللقاء رفعها إن يكون دعاءنا التي مات الدعاء هذا التي مات واللقاء رفعها وفي دعاء الأحياء كل نال دعوري توقمدوري وصدقاتهم صدقين كأيدحين أياه منفعة كسغن للأموات كبر دانتي منفعة كسغن ذاتك النور حدو كبر دانتي أيدعو أياه منفعة كهليا حدو صدقيان منفعة كهليا فك مؤمنين ويسكع الحرية إيمان كساكد حي قال هدي أي لبدان وآخرت تجان إلهي بإيه حسابين وان كالقرصان هاي مويان وان لكالقريين ما هي ووحي إلهي أقوى هاي الجروي ووحي دد إلى خلق إلهي أقوى هاي الجروي وبعض أيه وطر تنمي لقصوق هذا ملها معها وأنا يسامر قبر ذا إنه يروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كل كدد كنوال أو مؤمنين تأه إنه هدي كود انت أدعيه نفع بقى وصفهم صلاة الجنازة وكان له جدي إن أدعينه ما أنت مأكس الدعاء السبع أخالتي يالنه مركز الدعاء عامل لقد جمعي السبع بريل أخاسي ياله ساسا كفري عن إن دعاء سوء خاسي حتى هذا عام كده يستأسف أخاسي وأنا أتكنت كلك وحوية تنكل وحباري وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كلك وحوي والسد حرقة يعني اسكو وحرا منفعة وجرته وحوي دباسة لغير رفعة درجين كاللغو قريالا وصرش صدقات أي بحنيان كالأحدي أحدي هدول هاي هدول مثل هايبة صدقاتي منفعة وغصغ منفعة هي وغصغ صدقات كل بحنيان وهكذا سيد علماء أيضا برنتها وحل وحيات أبحثت ما أكيسا حتى قراءة القرآن للذكر هذا أبحثت ثوابك أدوه ديشت منفعة ويكهليا علماء ساسا أيضا برنتها علماء سلاس أيضا برنتها تاسو waxay ahayd arrimo hore la soo khilaafay ilaa jabanka imaam shaafici ba oran jiray quraanka sawaabkiisa iyo dhikriga ma gaaro laakiin waa lagu muwaafaqin saddexda madhabood kala aimada saddexda kala ahayd imaam ahmed iyo imaam malik iyo abu kuma iyo abu hanifa kuma ay waafaqin imaam malik ba xoogaa isaga u dilcay laakiin culimadii hatta shaafici ahayd imaam shaafici kuma ay waafaqin waxa weeye saasa loo badan yahay وعلماء واسدا وافق سياسة بلن حتى ابن القيم هو شاغية إنه قاري كتاب عندك هشان ابن أبي العز اللي هو شاغية إنه قاري ثواب كان هذا الجيش وقاري القرآن كداروا أخرجنا وقاري بالشرط إنه سن إيجار قبل سو إيجارتي والعقل سينا يو العقل قلوه شيء دونا هاي وهذا أخرجت كلك وحوي حق الإسكوليين ثوابك أروى الليل هداد هديوشي حتى إسلك مسلم عرفوه عن ملينيا حتى حديث وحو سيدنا عبد الله بن عمر حتى وحي ملينيا حتى صلاة هداد كنت كنت هذه صلاة بقولي معاك جبن بوجه محاد جيدي ما دام وقلتي حتى هلك أسيد جارسين جان على كل حال دعاري صدقاء يؤسوا فقاب صغي لبدا في المنفعة قصهم wixii aad u tari kartado wanaag ah ninka dhintay walaalkiisa adduunka ku haray waa arig waxaad sadaqada ha ka gooyni sadaqada iyo tuumada ha ka gooyni waxbay taraysaa ilaahay baa nafaray subxaanahu wa tacaala ducaa al-akhi li-akhi bilghaybi marka la yidhaahdo kuwa dhintayba ugu horreeya soo galay kuwaas oo ducada leeyahay mustajaab wallaahu ilaahayna yastajiibu waa ajiiba الدعوات دعوينك وأجيبه هذا كوا دنتي عدو دعيشت حدي نفس على عدو دعيشت حدي قفك على عدو دعيشت إلهي هو أجيبه ما لم يكن إثما أو قطيعة الرحم
ilaahay wuu ajiibayaa oo la odhan maayo arrinka hore baa loo dhameeyey wixii hore loo qadaray unbaa dhacaya. tuugmadan wixii ilaahay hore u qadari miyay bedelaysa? wixii ilaahay hore u qadari miyay bedelaysaa? ma bedelaysa. haddayna bedelaynin maxay tuugmada taraysaa? waxba faa'iido ma laha maaha. iyadoo ilaahay hore wax kasta u qadari, wax kasta hore u xukumay, iyo haddana ducada haddana ilaahay subxaanahu watacaala noo jideeyey. ilaahayna wuxuu noo ballan qaaday inuu naga ajiibo iyuu ballan qaaday. kolka taasi waxay ku tusinaysaa ducadaani inay ma arkaysaa ilaahay ajiibaya, inay faa'iido badan ku jirto. ducada weli waxay ku tusinaysaa yacni waxa weeye cibaadada ugu asaxsan wey. ila markaad ilaahay aad tuugtid waxaad qiraysaa inaad adigu isaga u baahan tahay oo baahi socoto aad tahay. waxaad qiraysaa waxyaalaha aad rabtay isaga keligii inuu ku hirgelin karo. waxaad qiraysaa inuu isaga kuu baanay. kolkaa waxa weeye waa cibaadadii caynteeda, bal mukhul cibaadi, waab cibaadada dhuuxeedii. kolka ducada markaad gacmaha ilaahay aad tuugtid oo gacmaha hoorsatid waxa weeye ma arkaysa yacni addoonnimaad qiranaysaa inaad baahan tahay, ilaahayna kaa deeqtoon yahay. waxa aad weydiisanaysaan isaga keligii inuu qaban karo. waaba tawxiidkii la rabay wey. kolka ilaahay wuu ajiibaa walow ma arkaysaa isagoo hore wax kasta u qadariy. maxaa yeelay marka hore ilaahay qadarayaba waxaa maanta suurobayso shaygan saasoo u dhacayaa hadduu qofka oosan ducaysanin. hadduu ducaystana sidaas kale u dhaca. inay sa korubsa ay ku xihan tahay baa suurob. kolka horeba inay sidaas ku xihan tahay oo arrintaa markii ducada aad samaysid arrintii balaayadii lagaa rafaco. kolka horeba ilaahay inuu qadiray arrintan ka rafacidda balaayadan lagaa rafacaya inay ku xirnay ducada inaad la timaado. ducada haddaad la timaadin waa lagaa rafacaya. wayaqdii ilaahay wuu guda alxaajaati danooyinka, baahiyahakan ilaahay danooyinkasana waa gudaa. danka aad leedahayna wuu kuu gudaya. marna ducada kugu gudaa, marna adigoon ducaysanin iyo xaajadaada kuu gudaa. tan baad leedahay, miskiin baad tahay, kollaba waxaad tahay baahi socoto. haddaad ducaysatay haddii kaleba baahi iska socotaa tahay adug. kolka ilaahay subxaanahu watacaala yastajiibu dacawaati, ducooyinku wuu ajiibaa. wayaqdi alxaajaati, xaajooyinkana waa gudaa. oo kolka maanta ma arkaysa dadka xaajooyinka ay leeyihiin ducaday ku gudaa ama si kalooba u guda. صلى الله